kulan casho sharaf ah oo si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee matalaada kursiga beesha barbaare 2021 ilaa 2025 Marwo Sahuur Xaaji Culusow oo ah musharax u taagan qabashada kursiga xildhibaanka beeshaasi kaasi oo ay ka soo qayb galeen dhalinyarada aqoon-yahanada odayaasha iyo waxgaradka haweenka isla markaana ay ku soo bandhigaysay waxyaabaha u qorshaysan haddii ay ku guulaysato kursiga xildhibaanka beesha barbaare ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka oo musharax xildhibaan golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya Sahuur Xaaji Culusow ayaa waxa ay codka kalsoonida ku weydiisatay dhammaan bulshaweynta ka soo jeeda deegaanada Shabeellaha Hoose iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana dadkii ka soo qayb galay ay si weyn u soo dhaweeyeen musharaxa xildhibaanka cusub iyagoo sheegay in ay siinayaan codkooda isla markaana loo baahan yahay isbedel dhab ah iyo wax qabad muuqda qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharax xildhibaan Sahuur Xaaji Culusow waxayna kula dardaarmeen inay wax ka qabato dhibaatooyinka haysta deegaanada ay ku nool yihiin bulshada ay ku matalayso kursigan xildhibaanka سهول هذا أشبه أمرامات وسيلة كارثة هذا سيرة وصفين وقف أقول للإنسان تركيا جعل سماها تركيا سيدو كلنا إن تركيا رجعوا يشان مشروع مركز لنوبيه هذه سهول dhammaanteen la dardaarmo anigoo matalaya dhalinyarada marna rabo in hadalka ku sii dheeraado haddii uu ilaahay ku guuleeyo xilkan inay qabato waxaa horyaa waxyaabo aad u fara badan ahaantii lagana doonayo inay sidaa tahay uga soo baxdo anagana doonayo wax walbana waa la garab taagannahay hadduu ilaahay yiraahdo ma aqaanin dhalinyarada shalay soo dooratay iyo ololeysay يدو عن كلها أفر صناعة الماء وضبطنا دليل السيطة معهم وبرارجي ضد كيلي يوم يومين جهل يمر على صوتك بس الحساب ترى من الشجرة معاقب تاتا مع بشدة تاتا ستة ما إما الشقية ودليل الشقية تبقى هذا القضية شقة وسكوشرة وتبقى هذا الحمد حي والبداية بلور داخلي سياسة إنكنا هذا كلية سبب هذا ما كان هي جارنا أبى بقصص وحرني عم تلفون بحرني أما ما بكلي سكة كلية دنا جارنا كلية وكلية musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Marwo Sahuur Xaaji Culusow ayaa dhankeeda sheegtay inay u taagan tahay isla markaana ay u tartamayso qabashada kursiga xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee soo socda isla markaana ay ugu adeegi doonto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada beesha barbaare ayna ka shaqeyn doonto isku keenida beesha iyo horumarinta adeegyada bulshada sababtoo inta u yeerna waxaan dhankaan ilkaan inoo qabo laakiin aniga caawa caqabad badan baan ku keenay intertigiina xoogaa kala yareeyaha intaas waa kaftan walaalahayga sharafta horta waxaa ogaataan aniga horta xildhibaanada ugu baahnay ilaahayna waa ii kaafiyey aniga qof kastaagila ahay caruurtayda reerkayga noloshayda saraaxan waxaan konton sano hadda haddayna iigu sii daran ani noloshayda iyo caruurtayda kama walwalaaytaan laakiin waxa aniga aa u imaaday ama aan xil u raadinaya waxay tahay idinka because idinka waxaa waaye dhalinyarada gariirka oo wadanka dhalinyarada laga dambeysay
musharax xildhibaan Suhuura ayaa waxa ay wax ku soo baratay dalka iyo dibadda waxaana lagu yaqaanaa hogaamin karti aqoon iyo dulqaad tijaabsan oo tayo leh ayna jirin aniga fikirkeyga cid ka mudan kursiga xildhibaannimada ee beeshaasi waxaana si weyn u taageeray ee u soo dhaweeyay bulshada qeybaheeda kala duwan Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.